كوكان أن ما توفر إنه قرطوكي سووا دعي دونا ديلا إدمو طبعاً كاسكو حد ولا بد جروب A B أيها سووا ديلا دونا كبعدي من لبكرة على قصة بحيسو أفتت قصة عارفين أيها سووا عيار دون تايرو يسووا أركاي حرير كتاني سكحير وكنت جي كوحاوي وهيستان سيد عيارها يودع عيان إن شاء الله برنامج كسان كل سعون دونا حرير كتاني سكرنا هانتي وحرير ما أنت سوك عاية لأنتم نمان سعلهين حديثا أيجا عن لهين سيدا حريرة قرب كي نتاجن وزارة دين إسبورتسكا قدوين أولندي كذا قرن كسوماليات لجنة إسبورتسكا وزيرة سيدا كلا مانتو وعندها كمان عيان عن كفر أحسن هاي وغرف اليوم بيني هراء حريق كسوماليات الثاني كمدان عثمان راجل معلم شاطر ونعافي وهلية بوتس كنت هذا الحريق كان نلقي عن سوق جالسين شنو خليته عم كذا عنده كمان عيان يصير عقدين فوقام جن بوتس هذا الجعل ديرك جديد كرن كينيرو مثلا جنن نقرب تاجناي ciyaartooyda dhiirigelinaysa wax walba u iimaanay garabkoodana joogay runtii bulshada Soomaaliyeed ee sportka jecel waxaan ka rajaynaynaa insha Allah sidaas oo kaleeto inay u dhiirigeliyaan ciyaartooydeena daayirta ee qaranka matasha ee soo koraysa run ahaantii ajendaha maanta meesha u fadhino sidaas ayuu noo dhici doonaa hadii Ilaahay idmo طبعاً كالكوحات أنا رمينا نقطوكو رؤوفة عن حسننا وحين كلنا علينا أكبر كامية أكبرين يتصفوا بالكينا يصيدوا ناسنا أنواع جيبتين يصيدوا أنواع اعترابتين وما هانتي وواح عن نسيكو لكريم هذا الكلمة من نبيل كرنو وأنا أتنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمزة حاج عبدي الحفلة أيام مكة في الجنوبية هذه المحور هذا وحن مكة نديته بالجنة مقال مكة في كل سنة وحقبك إليك سنسكا أو فرنك راح تستوين قبتين ليك أو مكة في صحابة إكاد القبتين فرنكنا هذا مكة ليس بالسؤال في الرسمية عندهم مقال قوان وكل سنة xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska wuxuu ka mid yahay xiriirada hoos yimaada guddiga Olambikada Soomaaliyeed ee GOS waxaana uu sidoo kale uu qayb ka yahay xiriirada sida joogto ah u qabta tartamada kala duwan kuwa gudaha iyo sidoo kale kuwa dibadda doorashada xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska tii ugu dambeysay waxay dhacday 23 bishii 2017 halkaas oo ay ka dhacday hoolka shirarka ee GOS talaabadii ugu horeysay waxa ay ku bilaabeen inay diyaarsadaan garoomo ay ku qabanayaan ciyaaraha ayagoo markaasi isticmaalaya garoomada qaar ee degmooyinka sida degmooyinka Shibis iyo Bondere iyo garoonka ciyaaraha ee Wish Stadium waxay bilaabeen tababarkii ugu horeeyay May 2017 iyadoo garoonka Wish oo markaasi ah halka ay tababarku ay ku bilaabeen waxa hirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya 30 November 2017 wuxuu xiriirku qabtay tartan loogu magac daray Muqdisho Open waxaana daa ka rogay gudoomiyaha Olambikada qaranka Soomaaliyeed Mudane Tarabi waxaana soo xiray wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Axmed Islow oo markaasi guuleystayaasha gudoonsiiyay koobkii Muqdisho Open Mahdi Mohamed Usman sida caadada ahaydna waxay ka qayb galeen shirarka caalamiga sida shirkii June 2018 ka dhacay wadanka Madagascar shirkii ka dhacay September 2018 ITF wadanka Portugal caasimadda Lisbon waxa shirkaasi ugu qayb galay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska Saad Umar Geedi xiriirka waxa caado u ah in imaarata shirar oo international ah laga qayb galo sida midka CAF iyo midka ITF oo member aan ka nahay International ITF Tennis Federation isna waxaan ka nahay member CAT-na waxaan ka nahay
member labada shirba waa ka qayb galnay laga soo bilaabo 17kii ilaa hadda waa laga qayb galaya 17kii waxaa nooga qayb galay Kigali ka dhacay Cabdiraxmaan Saciid Gentleman nooga qayb galay sidoo kale to kan ITF wuxuu ka dhacay Florida America ka dhacay waxaa nooga qayb gashay Maam Suhama run ahaantii 18kiina wuxuu ka dhacay Portuguese oo ITF oo ka dhacay gudoomiyaha Saacid Magida ka qayb galay African wuxuu ka dhacay Madagascar asna waxaa nooga qayb galay gudoomiyaha nooga qayb galay sanadkan 2019ka run ahaantii 2020 asna sidoo kale to shirarkii waxaa maaragtay ama activity-yaashii dhammaay waxaa maaragtay hoos u dhigay cudurkii faafay oo maaragtay coronavirus ayaa wax walba sports dhaqdhaqaaq ah loo joojiyay markii bilowga sanadkan 2020 waxaan ka qayb galnay mar kale to ciyaarihii ka dhacay Tanzania ee maaragtay 14 jirada iyo 16 jirada runtii xiriirka waa xiriir saas u soo kacay maantana oo marayo in uu maaragtay yeesho garoon maaragtay opportunity fiican ama ciyaartooy badan ay ku abuuraan ayagoo garoomahaysan oo garoomo ku meel gaar ah isticmaalayo ayay ahayd in maaragtay uu xiriirka san soo kacay maantana hadduu garoon helo waxaan u maleynayaa inuu sidan iyo si ka duwan u gaari doono insha Allah 2018 waxa ay qabteen dhacdii ugu weyneed ay qabtaan horyaalkoodii ugu horeeyay muddo 20 sano kadib kaas oo loogu magac daray Astaan Media kaas oo sidoo kale meel gelisay isla Astaan 2018 run ahaantii waxaan asagana sidoo kale to dhacdada ugu weyneed ay ahayd inaan qabanay koob oo maaragtay horyaalkeen ugu horeeyay muddo 20 sano ah aan la qabanin inaan qabanay oo ahaa horyaalkii ugu horeeyay tenniska aan qabano oo markaas ay marti gelinaysay TV-gan ay u jeedeen Astaan Media ma hada ka gaartay runtii waxay ahayd horyaal maaragtay aad loo soo abaabulay ay ka qayb galeen 7 kooxood waxaana ku guuleysatay kooxdii la dhahay Notay Shabeel ay u kala dheelayeen Mahdi Ismaan iyo Maxamed Beega sidoo kale kooxda waxaa kaalinta labaad gashay Giftin Cabdikaafi iyo Cali ay u kala dheelayeen run ahaantii wuxuu ahaa xiriirka markaas image-kiisana kor u soo kacay waxaa noo suurta gashay 2019kii sidoo kale 18 waxaan qabanay koobkii Muqdisho Open asna sidoo kale wuxuu ahaa koob maaragtay runtii si weyn ciyaartooyda u dhiirgeliyay ama maaragtay moraalkooda kor u soo kacay dhacdii ugu weyneed waxay ahayd sidoo kale dhacday 2019 in wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiri ay ku wareejisay dhul ay ka dhistaan garoon uu xiriirka Soomaaliya tennis ku leeyahay kuna qabsadaan dhacdooyinka si loo soo saaro dhalinyaro markaasi aad u daayar imatasha qaranka Soomaaliya tiro ka badan tirada hadda xiriirka u diiwaan gashan 2019kii sidoo kale to dhacdooyinka ugu waaweyn aan ku xasuusan waxa kamid ah in aan helnay garoon oo maaragtay xiriirka qaas u ah oo maaragtay dhacdooyinkooda ay ku maamulan karaan kaasoo ay nagu wareejisay aan uga mahadcelinayno wasaaradda sportska gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Marwo Khadiijo runtii waa wasiirad aad u jecel sportska ama aad u horumarisay dhul ayay nagu wareejisay oo aan xiriirka tenniska aan rabno inaan maaragtay aan ugu qabano jiilka Soomaaliyeed inay maaragtay ka faa'iideystaan oo xiriirkaas uu kor ugu kaco sidoo kale sanadkaas waxa xiriirka u suurta gashay markii ugu horeysay inay ka qayb galaan ciyaaraha zoonka iyo kuwa qaaradda Afrika kuwaas oo ka kala dhacay wadamada ay ka mid yihiin Tanzania iyo Kenya ciyaartooyda da'doodu ka yartahay 12 sano iyo 14 sano kaas oo gacan libaax ay kaga qayb qaateen ka qaybgalkooda ciyaaraha guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed iyo gudoomiyihii hore ee degmada Shibis Marwo Safiyo Monica iyo maamulka gobolka Banaadir ay horkacayso Marwo Basma Caamir iyo Marwo Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka iyo gudoomiye Xasan Weesh kuwaas oo sagootin fiican u sameeyay iyo sidoo kale dhiirigelinba ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed ee tenniska sidoo kale waxaa la qabtay koobkii sanadlaha ah ee Muqdisho Open sanadkan waxaa koobka gudoonsiiyay guuleystayaasha Maxamed Awees iyo sidoo kale gudoomiyaha sportska ee gobolka Banaadir Mudane Xasan Aadan Xaaji iyo Marwo Weesh waxaana maanta u fadhinaa horyaalkii labaad ee Turkiisa oo ay markaasi kamid ah horyaalada sida joogtada u qabanaya sanadooyinkii ugu dambeeyay xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska reer waxa uu sidoo kale u qayb ka yahay xiriirada markaasi si joogta ugu qayb galaya ciyaaraha ka dhacaya gudaha iyo dibadda iyadoo guulo wax ku ool uu ka soo hooyo tartamadii ugu dambeeyay uu ka qayb galay
xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska wuxuu ka mid yahay xiriirada hoos yimaada guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS waxaana uu sidoo kale uu qayb ka yahay xiriirada sida joogto ah u qabta tartamada kala duwan kuwa gudaha iyo sidoo kale kuwa dibadda doorashada xiriirka Soomaaliyeed kooban waxa markaa uu ka hadlayay tartanka tenniska dheer oo markaa dhawaan furmi doona iyo waxqabadkii sanadkii hore ee xiriirka markaasi uu sameeyay iyo hadafka sanadka markaasi ay leeyihiin iyadoo qaybihii markaasi dhexe ayuu ku sii saqeen waxaa markaa u mahadcelina dhammaan muslimiinta kala duwan ee halkan ka soo qayb gashay iyo marka sharafta kale iyo sidoo kale ciyaartooyda iyo kooxaha kala duwan ee maanta halkan lagu sameynayo isku aadkooda oo 10 kooxood gaaraya khudbadaha waxay ka codsanayaan muslimiinta inay soo koobaan maadaama waqtigii salaada maqribka markaa aad ay kusoo markaa ay aada u dhowdahay waxaan u mahadcelinaa sidoo kale maamulka howlkan quruxda badan ee Jawhara Hotel oo markaas inagu saaciday in halkan markaa xafladda ay nagu qabsanto iyo sidoo kale maamul Suhayma oo garweyn ka geysatay sidii xafladdan markaasi u qabsoomi lahaydna waxaynu leenahay mahadsanid xafladda ayaan sii gudgeli doonaa markan waxaan ku yeerayaa Cali Cabdullaahi Maxamed oo ah kusimaha gudoomiyaha xiriirka tenniska السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وصلنا من كل كلا صار ما نحضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وحاب الله وزارة عيارها ورنتي متقانا إن سئادة وقرب قوتي متقانا إن حريق التنسكا iyo Olombikada waxaa markan aan soo dhaweynaa shaatax oo ah gudihii hore ee xiriirka tenniska mudane Cusmaan Fadel بسم الله الرحمن الرحيم. وراء السلام على الطليعة وزيرك الرمبة اللي وزيرك عيارها الشغل غني الدين وزيرك وراء هي مسؤولية كل الدول هو بدون عيب تاني كأن سماع بدون علي عبد الله وياها إنما بعد أسبوع كده هي عيارتين تاني كأقاطع ذكر وجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عقابه فرح سنة هاي إن حريق التنس مرة بعد تبي وصلنا له أنتي كسر حمزة ويري لابد كنت رويت وكالة سونا اللي لك وعكوه رئيسي فعشان يسجد يدب وصلنا لحريق التنس تبي سونولاتاس تبكي وحكفها إذا كبر سنة حمزة نبرون وكيها وعند حوياك وأنا فرح سنة إن حريق وعند مدح كنغضو مدح حريق من نغضو مدام وعد عوال ويا وحل الصومري يهارك وصومر حريق تنس تنس كسيدي سبب وعيارها أدونك وقع لسن مركا لبرناها
isla markaana waa cayaaraha adduunka ugu qiimaha badan. waxaan xusuustaa in tartamada iyagoo ciyaartooydeena mararka qaarkood gobol la-aan wax ku bari jiray inaan ka qaybgeli jirna cayaaraha bariga bartamaha Afrika iyo cayaaraha maaragta cawsacadtinimo aan la yeelanaynay Kenya iyo Djibouti. waxayna ahaayeen ciyaartooy markaas aan isdhihi karo iyo diilay lahaayeen iyo waxay lahaayeen hawo badan oo ku qabsan karaan walow markaas uu aada u gaabiyey taageerada uu heli karo xiriirka tenniska oo aada moodid in maaragta badanaa Soomaali sportigeeda ama olombikada xooga saari jirta footballka. waxaana marka ciyaaraha adduunka laga qaybgalayo hal qof oo tenniska ciyaaro biladaab uu soo helo waxay la mid ahayd koox dhan oo kubadda cagta oo biladaab kuwa mid ahay biladaha daacsa. marka laakiin lama fahamsaneen oo inta badan ciyaaraha kubadda cagta iyo kolayga ayaa maaragta mooda in aada loo daneynayay. tenniskana uu ahaa mid runtii duudi badan aan gelinay wax badanna aan ka qaban waagaas. waxaan ku faraxsanahay in hadda dadkii waagaas wax ka bartay hadda ay dhihiin mas-uuliyiintii qaarkood ciyaartooyna ay weli ay joogaan. waagaa waxaa loo ciyaari jiray individual ciyaarahaas loo qaybgeli jiray laakiin hadda in kooxa arkinaa waa tallaabo hore loo qaado in hadda kooxuhu ay yeeshaan. waxaana rajeynaha hadii alla yidhaahdo in tennisku uu noqdo mid dadku aada u fahmaan aada loo barto dhalinyaradan aada loogu bilaabo khaasatan iskuulaadka oo caruurta aada loo tixgeliyo. maxaa yeele tenniska xilliga ugu habboon la baran karo waa 9 jir ilaa 14 jir ayuu ku habboon yahay haddii la rabo inuu mustaqbal u yeesho ciyaartooydaas. waxaan rajeynaha aada u fahansiin inta mas-uuliyiinta hadda joogo cali oo isla joogi jirnay iyo dhammaan dadkii weli joogaan. waxaan rajeynaha inuu xiriirku noqdo mid ama qaado hawada uu leeyahay bishop uu leeyahay gaaro. waxaan u hambalyeynaa mar labaad mar saddexaad. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xafladda ayaan sii gudagali doonaa. waxaa markan aan soo dhaweynayaa Professor Muuse Naasir oo markaasi ka mid ah lajanadii hore ama bahliiradii hore dhinaca isboortigana door weyn ka soo ciyaaray. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وسلامتين. هذه ما تسيهين حريركا تنسكا ولا سو نولي مدو خوغا كمقنا حدنا قرون الآن يا هاي مدو يكودين شبدسي بوندر يوم مالا كلا hodana malayna hadda laakiin garoon ay heleen wasaaradda siisay insha Allah garoonka wuxuu u baahan yahay dhismo waxaana lagu dhisi karaa iska wax u qabso ilaa hadda dada contribution yar bixiyay laakiin lacagtaas yar ma dhisi karto wili waxa loo baahan yahay in si fiican wax loogu deeqo oo hal mar si fiican loo dhiso insha Allah tenniska wuxuu ka mid yahay ciyaaraha kubadda madrabka la dhaho oo usha lagu dhufto sida table tennis tenniska hockey wixii baad u lagu ciyaarayo
marka tenniskana run waay siduu guddoomiyihii hore sheegay waa ciyaar u baahan qof waliba ma iska ciyaari karo wuxuu u baahan yahay qalab fiican dhar fiican iyo wixii la mid ah waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay qorituurkan maanta 10 koox loo sameynayo waxaana fili doonaa inay gobollada iyo degmooyinka gaari doonaan 10 koox horyaal loo sameeyey weli waa yar yihiin ee xamar waxaa loo baahan yahay in la fidiyo meelaha kalena la gaaro hadduu ilaah yiraahdo in sha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وهجاك أبو مسيحي هليه هره بروفيسور موسى ناصر ومركزي كمدا هليه دي دينا سبورتيغا دوروين كسو قاتي هرمرنت سبورتيغا قيبها دم بحفلة يان مرينا يدو مسؤولين تا كعسن سوكوبان ما دام وقتكو آد إنو كلاليو وصلاة دي المغرب ينقصو دودة هاي سيدو كلان قرطوركي وينسوغيو وحمركنا نسود بينيا وميكروفون كان كسود بينيا gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga mudane Cabdullaahi Cadaani بسم الله الرحمن الرحيم مسؤولين وزارة داليرة عيارها كلا دوان وهريو نطليها وزيرة يا قاسم ياشا يا مامورا ياشا وزارة داليرة عيارها مسؤولين حرة كلا دوان جودة أولمبيكا الصوماليات سيدو كالنتوت وزير عبد القادر جيو دمان جودة فلنتا حرير كصوماليات تنسكا aan halkan martida ugu nahay waxaan leeyahay hadal badan kama furra meeshan waxaan aragnaa xiriir la doortay 2017 ee maanta leh in uu yeesho kooxo milkiilayaal oo hadii Allah awooda leh raali ka noqdo doorashada 2022 Maarch dhici doonta xaq u leh inay doortaan guddigoodii fulinta diyaariyayna tartan horyaal sanadkii labaad waxaan leeyahay hambalyo ku dayasha ayuu mudan yahay xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dhammaan intii ka soo qayb gashay waan u mahadcelinayaa xiriirkana waxaan leeyahay guuleysta dadaalkana halka ka sii wada وإن أبو مسيحي عبد الله عداني gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga ayuu markaasi ahaa oo kamid ah barjaratalka markaa lagu casuumay iskuadka maanta loo joogo tartanka tenniska tenniska marka la fiiriyo adduunka waxaa jirta markaasi lambarada lagu kala horeeyo sida ciyaarada caanka adduunka aynu daawano sida haddii ah Rafael Nadal ama Roger Federer dhinaca hablo kale Serena Williams iyo Maria Sharapova iyo dhinaca hadii raggan u maano Novak Djokovic oo kamid ah ragga markaa tartankaasi caanka kuwa anagana sidaas oo kale waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya ay u soo baxaan ciyaarina ku dheereeya kubadaha tenniska dhaadheer ee la xifaaltama ciyaarada ku caanbaxay tartamada adduunka ee kala duwan sida hadii ay helo Roger Federer amaba sidoo kale Rafael Nadal amaba Novak Djokovic waa tahay xafladda ayaa markaasi aan ku guda jirnaa iyadoo qaybihii dambe aan soo gaarnay waxaana qaybta markaasi ugu dambeysa xafladda halka qodobada ugu soo jeedinaya oo inoo soo xiraya kadibna waxaan markaas sameyn doonaa qoratuurkii waxaan u yeerayaa la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Ibrahim Hussein Rombe Sacabi soo dhaweey
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay barnaamijkan mansab buu ku fadhiyo waxaan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Marwo Khadiijo Maxamed Diriye oo aan leeyahay ka guddooma salaan diiran waxaan leeyahay midda kale barnaamijkan waad arkaysaan oo halkan fagaarahan xiriir muddo gaaban sameeyey kobac aad iyo aad u weyn waxaan leeyahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay gacan ka geysan doontaa wax kastaba oo tasiilaad ah ay u baahan yihiin xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska runtii wuxuu sameeyey tallaabo aad iyo aad u weyn sababtoo ah asagoo marka garoon haysanin asagoo muxuu ahaa dhaqaale xumo jirto ayaa waxay gaareen heer ay ka qayb galaan ciyaaraha dibadda guulana ka soo hooyiyey waxaan leenahay waan ammaanaynaa waxaan leenahay hor u sii wada barnaamijkan waa muxuu ahaa horyaalkan waa kii labaad oo aan leeyahay kan ayaa waxaa ka muuqda diyaar garow aad iyo aad u ballaaran maadaama ay ka qayb galayaan 10 naadi guushaasna waxaa iska leh xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer runtii waxaan ku aqaanaa firfircooni xubnihiisii garoonka maanta wasaaradda dhalinyarada isboortiga ku deeqday waxay ka qaateen kaalin aad iyo aad u ballaaran waxaana u dhiman wax yar waxaan rajaynayaa intaasna inay ay muxuu ah qof kastaba naga mid ah inuu kaalintiisa ka qaato wasaaradda kaalinteeda ka qaadato xiriirka laftiisa mar labaad inuu jeebkiisa fiiriyo waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ba umahadsantihiin maadaama waqtiga uu yahay cariiri hawshii ha noo bilaabato qorituurkii waana mahadsantihiin وهجاك وحن سوق مركان غبي بوم بسرعة حفلة وقيبته مركز قرطور كما بيسكوات كا وحلاص منا يا الله يتمن كوحود وكقيب قادني يترتن كا تنس كا أو سوماليا لجوء قبضونه يدو حرير كتاني يدي بسونالنتي لبادي سنة دقودن بس دور وين كقادني ترتن كان صدق كلنا قرن كان عيارنا مركزي أي مثلاً أو وجوء قيب قادتين ترتن أو دوام مركزي أي أذين waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan ka soo qayb gashay xafladan sidoo kale mahad gaari waxa markaasi aynu siinayna oo xafladan iyo abaabulkeeda door weyn ka geysatay maama Sohama Maxamed Aadan waa Sohama Maxamuud Aadan oo markaasi kamid ah dhinaca abaabulka xiriirka tenniska sidoo kale kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya sidoo kalena waxay door weyn ka qaadatay horumarinta dhinaca tenniska waa gabar markaasi door weyn ka soo qaadatay hadii ay ahaan tartanka tenniska waa halyeed qaran oo hore u soo ciyaar tartanka dabcan adduunka wadamada kala dunida hadii ay ku faanaan Maria Sharapova ama Serena Williams anagu waxaynu ku faanaynaa Sohama oo markaasi kamid ah halyeedeen hagaag waxaa sidoo kale la xasuustaa dhawaan inay ka qayb gashay shirkii weynaa ee xiriirka tenniska adduunka oo markaasi Florida ka dhacay oo door weyn iyada markaa ka soo qaatay oo Soomaaliya ay u mataleysay Marwa Sohama oo xafladana sidoo kale qabadeeda ugu xoog badan maanta markaa sabab u ahayd in holkan quruxda badan lagu qabto aan u madcelino doorkii ay ka qaadatay horumarinta sportiga gaar ahaan tartanka tenniska dheer waan rajaynaynaa inay soo saarto waayahay waxaan u rajaynaynaa maamada dabcan inay soo saari doonto gabdho tenniska haddii raggii ay joogaan gabdhana waan rajaynaynaa inay soo saarto sida oo maxaan idhahdaa Maria Sharapova iyo Serena Williams iyo
doorkooda dad markaas ka qayb qaadan kara waayahay waxaan markan u yeerayaa Sohama Maxamuud halka inay soo istaagto iyo sidoo kale lajan Cabdiqani Jeeyo wasiir Cabdiqani Jeeyo iyo sidoo kale waxaan u yeerayaa Sohama waayahay labadooda min halal su'aal ayaan weydiin doonaa oo ku aadan siday u arkaan isku adka tartanka tenniska oo lagu sameeyay halkan iyo nasiibka ay u yeesheen waayahay waxaan soo dhaweynayaa marka hore maama Sohama oo markaasi kamid ah haliyadii sportiga xulka qaranka markaas soo matashay dhinaca tenniska dheer sida waragta inaad qayb ka ahaato ambassadorada inoo sameynaya qoriturka السلام عليكم هردور هذا أم سنتين عيارتوي ذي يو كوحها ويمد إنك قاطع هذا أم فرح سنة مستر رامبو هذه هذا ما كمان توحى هل كان وجوجنا إنا عيارتوي ذي أطور نقرس تور سيس كجهوري مان لهاي مركا هذا أم سنتين أنا waayahay aad u mahadsantahay lajan Sohama waxa markaan soo dhaweynaya Cabdiqani Jeeyo wasiirka wasiir Cabdiqani sida waragta inaad madashan maanta aad qayb ka ahaato qoriturka runtii waa ku faraxsanahay kubadda table tennis kan ka bilaabay long tennis kan waa ciyaari jiray back to the days inkastoo aan naadiga aan gelin runtii dhalinyaradan waxaan ugu imid ama aan u jeclaa sportiska waxaa fahmi kara qofka ku dhex jira dhalinyaradan waa inaan wada caawino aadaan u mahadsantihiin waxaan u mahadcelinaa maamada xafladan aad u quruxda badan ku deeqday waagaan yareen wixii aan heli jirnay dhalinyarada hadda ma helaan marka taas waa annaga always aan u garab istaagno jiilka cusub ee sportiskana lagama duqoobo lagamana dheeraado waa wax aad u fiican waa mahadsantihiin waayahay marka waxaan gudagali doonaa hadda dhinaca ay qortuurka gududka halkan ku guda jiraan qaybta kooxaha 10 kooxood ka qayban ee ka kooban iyo sidoo kale gurubaday kala gali lahaayeen waxaan ku soo dhaweynayaa xogayaha oo dhinaca isku adka ee marka ay noo sharaxi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaa u jeediin gasacyadan kookuusan waxaa ku jira kooxaha magacyadooda oo ka kooban 10 kooxood koox walba magaceeda waxaan u kala qaybinay laba qaybood 5 iyo 5 kan yariiskana waxaa ku jira xarfihii ay kala geli lahaayeen laba group waa group B iyo group A xaraf walba meeshiisu ku jira oo B1 B2 ilaa A1 A5 5 group laba group waaye 5 iyo 5 ay u kala qaadanayaan marka insha Allah magaca ugu horeeya markii la qabto haddana waxa la qaadayaa groupka marka waxaan rajaynaynaa insha Allah midba mar inaan u kala qaadno oo aan ku bilaabno kooxaha waxaa noo jooga lajannada sportiska iyo maamul Sohama oo kamid ah xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska ahna xibinta ugu firfircoon ee xiriirka tenniska waxaan leeyahay marka xabad kamid ah maamul تيم لادن لادن ترافل وتيم كوجو هري سوقه وعي هلين B4 لادن ترافل B4 كي لوان نوتايو نوتايو شابيل شابيل اوكي كوحدة لبات A2 اوكي صدق gift ستار كويس كده سو قاعد
A1 afar Dolphin Hotel بغن جروب كسر A4 shan دكدة B3 اوكي إلاس برنت B5 لما عم بريج يا تمام اوكي ترتيب يا تضوى جوبكي يونيفرسيتي B2 اوكي ولا خلاص سداد Somali Syrian Hospital Syrian Hospital A3 اسكت سجال هيجن A5 كيو دمبي طبعا Elman B1 okay Anjib. Grup ma krisi karama hay. Thank you. وهيك داوديال sida markaa aan u wada jeednay iminka waxaa la sameeyey qorituurka tartanka tenniska dheer 10 kooxood ayaa ka qayb qaadanayaan 10 kooxoodna qaabkan ayay u qoran tahay sida aad markaa u wada jeedaan group A waxaa markaasi ku wada jira Gift Star Notayo Shadel oo ah kooxda difaacanaysa Somali Syrian Hospital Dolphin Hotel iyo Hagen sidoo kale group B waxay soo weeliyaan kooxaha kala ah Elman Joke University dekadaha London Travel iyo sidoo kale Elis Branch ayaa markaasi qayb ka ah groupkan markaasi tartanka qorituurka qaabkaasi ayuu u dhacay daawadayaal sida markaa imika aynu u wada jeedno groupkan sidan ayaa lagu soo baxaya oo marka laga soo bax kadib waxaa kooxuhu ay tagayaan semifinalka kadibna ilaa iyo heer final ayaa lagu soo gabagabeynayaa groupkana waa iswada arag oo kooxaha dhammaantood markaasi iswada arkayaan tartankana waa tartanka singalka ama kala keli loo ciyaarayo 10 kooxood ayaana ka qayb qaadanaysa sanadkan xafladeena ayaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay halka ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan ku soo xiran doonaa idaha quraanka kariimka qolka eebe kadibna waxaa markaa inoo xigi doonta casriye yar oo dhammaantiin markaasi halka aan ku wada casriyen doono qaybta markaa inoo joogto